السلام الله عليكم داوديال كسو دوادا warka saacada oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah VOS TV iyadoo warkan uu ka yimaado xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho uu ku leeyahay waa maalmo Arbaca taariikhdan ay ku aasiisan tahay 8 September sanada 2021 qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ahaan doona hay'adda nabadgelyada Soomaaliyeed oo shaaca ka qaaday inuu xilka la wareegay agaasimihii ku meel gaarka ahaa ee uu magacaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ay hay'adda sirdoonka nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ay ku leedahay waxa lagu sheegay in taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu xilka ku wareejiyay gaashaanle sare Yaasiin Faray oo uu habeennimadii xalay magacaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa taliska nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ka dhacday munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ku meel gaarka ah ee hay'adda nabadgelyada Soomaaliyeed gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray waxaana alla ugu rajaynaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u eegmaday ayaa lagu yiri warkaasi la soo dhigay barta Twitterka hay'adda nabadgelyada Soomaaliyeed ay ku leedahay talaabadan ayaa ah mid looga hortagayo isku dayga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in xilka uu kula wareego agaasimaha ku meel gaarka ah ee uu magacaabay hay'adda nabadgelyada Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Bashiir Goobe warkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli habeennimadii xalay qoraal ka soo baxay villa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu aqbalay iscasilaad uu soo gudbiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ahaa taliyihii nabadgelyada Soomaaliyeed sidoo kalena uu si ku meel gaar ah agaasimaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliyeed oo magacaabay Yaasiin Faray balse uu ka soo horjeestay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland ayaa gaaray maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta wuxuu gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoona si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Puntland oo maalmihii la soo dhaafay safar ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa ujeedka safarkiisa ee magaalada Gaalkacyo waxa lagu sheegay in uu xariga ka diri doono garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium oo hab casri ah loo dhisay sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa kulamo kala duwan oo la qaadan doona maamulka iyo odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo isagoo sidoo kale kormeer ku tagi doona dhismaha dekedda Garacad meydka gabar yar oo Soomaali ah ayaa waxa laga helay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota waaxda booliska magaalada Edina ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay xaqiijisay in la helay meydka Ikhlas Cabdullaahi Axmed oo ahayd 2 jir taasi oo muddo 18 saacadood ah la raadinayay oo la baadgoobayay kadib markii qoyskeedu ay waayeen meydka Ikhlas ayaa laga helay haro biyo ah oo u dhow barxadda lagu ciyaarsiyo caruurta ee loo yaqaan Rolsanda Park oo markii ugu dambeysay ay la joogtay xubno ka tirsan qoyskeeda ciidamada booliska debdemiska iyo kooxaha gurmadka oo u dhow magaaladaasi kana kala yimid ayaa baaritaan dheer kadib waxay heleen Ikhlas oo ahayd gabar yar oo la xanuunsanad cudurka autismka anigoo ku hadlaya magaca magaalada Edina waxaan rabaa inaan tacsiir tiiraanya leh u diro qoyska gabadhan yar musiibadan xoog leh waxay saameysay qalbiyadeena ayuu yiri taliyaha booliska magaaladaasi bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi ayaa habeennimadii xalay isugu yimid kulan baroor diiq ah iyo duco gobolka Minnesota oo ah gobolka ugu waraha badan dalka Mareykanka ayaa ilaa hadda sanadkan waxa biyaha ku geeriyooday dad tiradooda lagu sheegay 26 ruux dalka Mareykanka ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin dhismaha dawladda cusub ee dalkaasi Afghanistan uu yeelan doono dawladda Mareykanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhismaha dawladda cusub ee Afghanistan oo la tilmaamay inay ku jiraan rag lala xiriirinay in ay ka qayb qaateen dagaaladii looga soo horjeeday ciidamadii Mareykanka ee joogay dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay qiimeynayso ku dhawaaqista Taliban ee dhismaha dawladdaasi oo la tilmaamay in aysan ku jirin wax dumar ah
golaha wasiirada ku meel gaarka ah ayaa waxaa hogaaminaya Mullah Maxamed Xasan Aqmuud oo ku jira liiska madow ee qaramada midoobay iyo ninka loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha Siraajuddin Xaqaani oo ay baadagoobayaan hogaanka baarista FBI-da Mareykanka. Dhismaha dawladda cusub oo ka kooban 33 xubnood ayaa waxaa ka mid ah Mullah Maxamed Yacquub oo ah wiil uu dhalay Mullah Omar hogaamiyihii hore ee xogaga Taliban waxaana loo doortay wasiirka difaaca dalkaasi Afghanistan halka wasiirka maaliyadda Afghanistan loo magacaabay Hidayatullah Badri. Amir Khan Muttaqi oo Taliban u qaabilsanaa wadahadaladii waawaanta ee ka socday dalka Qatar gaar ahaan magaalada Doha ayaa waxaa isna loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan uu yeelanayo. daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeerinaa warka saacadda kaga imaanayay xarunta dhexe ee TV-ga VOS uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. anigoo anteena ayaa warkii soo jeedinayay intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.